mar walba aan meel soo aadayo dabcan mar walba waxaa sii bilaabaa tusaale weygii waxaa jirto khamiistii iyo isniintii inaan meel aado hadda maanta waa khamiis maasha allah waxaa jirto weygii khamiistii isniintii inaan aado book reading sidaa wada ognahay dadka igu xiran egyihiin waxaa ii socda buugga akhrintiisa buuggan Atomic Habits la dhahaa dabcan buuggan akhrintiisa ii socoto laakiin mar walba ee dhacdo inaan meel soo aado waxba ilaabaa maanta inaan wax soo ilow orto ceebteeda ma ahan si haddii loo fiiriyana xaqa u leeyahay sababtoo ah maalin walba oo reading soo aado kaamirada wax iskuma soo dhigo keliya baagidada soo qaataa labadeeda buug labadeeda ookiyaal iyo waxayga ay jiro akhrinta waxaan rabaa meel yaroo qurux badan dabacsan isniin iyo khamiis walbana meel cusub ila aadaan jecla waana fiicanta inaan wax akhrinta barato wallaahi buuggan ka horeeyey waxaa dhigay Rich Dad ama Soomaalidu waxay u taqaana aabaha qaniga sawirkiisa halkaana idiin soo saaraya buuggan akhrintiisa wax badan ay ka faa'iido sababtoo ah waxyaalaha inta buwaagta sababta oo akhrinayay micnaheeda xitaa maysan ahayn in aan perfect boqolkiiba boqol aan fahmay ma ahayn sababtoo ingiriiska waa iska jabsadaa ani waa fahmaa waa ku hadli karaa everything waa ku adeegan karaa hadalka buugu ku qoranna waa fahmaya saasay tahay waxaan soo mar walba akhriyo waxay tahay waxaan rabaa nolosheeda fiir waxaa la dhahay wixii abuurata ayaa ku soo baxaya waxaan rabaa inaan hadda abuurto wax akhrinta garaadka inuu ii kordho si aan hadhow markii aan weynaado wax akhrinta ay igu noqoto caado aan mar walba zeynto fastiika I want coffee black coffee thank you lagu qeexi waayo in la waayo iska fiican tahay waxaan ka wadaa maanta haddii dhacdo inaad tusaale qof baa lagu weydiiyay waxa lagu dhahay saaxib ninkii Yuusuf ahaa waxa iiga sheeg qofkaas hadduu hal qofood ku qeexi karo hal waji kugu qeexi karo daqiiqada kooban qofka tahay ama shakhsiyadaada dhan uu ku dhamayn karo saaxib qof fiican ma tihi sababta waxa waaye way fiican tahay in horta wax wanaagsan lagu qeexo xagga loo dhigo laakiin waxa fiican ma taqaanaa in qofku wuxuu kugu cabiro uu waayo iyo ninka meel u xisaabo male sababtoo ah qorshihiisa lama oga waxyaalaha uu ku dhaqaaqay cid og male waxyaalaha uu sameeyay cid og male damiinis qofka saaxiib waxa ku qeexa ma hayo way fiican tahay in lagu dhaho saaxiib maanta ani hadda kula hadlaayo maanta meeshaan aan soo aaday muuqaalkan aan sameysanayo readingka aan sameynaayo nolosheeda waxaa ku soo siyaadinayo wax qof og ma lahan qof bini aadan oo maanta og ma jiro sabab ma taqaan sababtu wax kale ma ahan ma rabo inuu qof ogaado waxaan rabaa kaliya inuu ani igu ekaado waxa sameynaayo waxa akhrisanayo meesha aadayo qof maanta qeexi karta ma jirto meesha aad joogo oo muuqaalkan ku sameynayo cid bini aadan og ma jirto
ka hadlo warqadan yar qof wax buu isticmaalaa horta warqadan laakiin waxa uu isticmaalaa anigoo meelaha mar walba aan arki karo ku dhijinay gidaarada like waxyaalaha oo waxaan u isticmaalaa computerka mar walba waa arkaa mugtaa waxaan kaga dhijiyaa afka hore ee computerka warqadan anigoo ku qoraayo wixii aan markaas rabo hadda tusaale waxaan ku qoraa I miss you والله قدام مقالك العالم اسكداو لي سو اوغاي waxa ii tahay qof ku hore bro bidaaw one of the best youtuber oo ah one of the best youtuber actor ka qof ku hore ee daawata aniga oo ku salaama oo ku jeclahay I miss you oo ku xis meeshaan asay qabeynona kofe ku soo dhiga waa jeclaan lahaa in halka fadhiso halkan kuraas badan aan taala kursiga isoo fadhiso waa jeclaan lahaa laakiin waqtigii waayaha iyo adiga waxa la horta is jecel wada joogistooda waqtiga tiidi madam hello how much 10,000 haddii ay dhacdo inaad imaatid meel qurux badan ama aad waqti inaad ku qaadato imaatid dadka kale inaad quruxda u soo gudbisid waxa ka horeeya inay nafsadaada horta waqti badan meesha ku qaadato nafsadaada ku riyaaqdo quruxdaas nafsadaada ay qaadato ku baashaasho indhahaaga ay daadaawadaan ku fiican soo tasudaan wax kale maahan dad badan waxa arkay meel dalxiisa joognaa dadka u soo gudbinaya mar walba waxa ka horeeya nafsadeeda amiisiyo wallahi waan ku jeclahay oo macaan love you so much wallahi billahi taala heerkan maanta aad taaganahay qofka kaliya ugu madcelinahay ilaahay ka soko wallahi waa adiga I love you mom love you so much أمان الله وبحا ومغرب واي كل حافظ إلى أنت 6 كيلومتر عمل اسكو جرتا حافظ إلى أنت 6 كيلومتر عمل اسكو جرتا أنا واحد كتبويا ويا عبد إذا مر بقلين إيه مركتا والد كي يعمل الله وتعالى يا الله إلهنا أمان في أمان الله إن شاء الله فأنا بحنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أتعطيه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا عبد العظيم إله الحفظ إله أمان تعالى مجدك يا رب ودن ددوا اسك جوجنا ودن ددوا مخالدان ku sameeysanuna waddan dadawaan macnaa waxa leenahay waxa ku akhrisanayna hadda boor ii soo bax soo marka waddan dadawaan joognaa muuqaal ku sameeysanayna wax ku baranayna like ka shaqeynayna saa u labisan tahay aad xarakeynaysid aad isu diyaarinaysid wax u haysatid ayaga uma haystaan waa dad sabool ah soo wayna jiraan dadkooda lacagta ugu leh dad macnaa dad lacag leh way jiraan soo marka muhiim oo wanaagsantaa markii aad ku dhex socoto in adkaarta ilaahay afkaaga ku haysid marka guriga soo baxaan walaa adkaartii waa soo akhristaa mar walba laabanayaan idinka waxa idinka ma galin waa sax laakiin waxa idin sheegaya haddii meel aadaysiin ama waddankaaga xitaa haddaad joogtid xitaa waddankeena amni ahayn waxa ugu soo cararnaya saas xitaa haddii aad waddankaaga joogtid oo kugu buwaabin lahaa oo kugu baraarujin lahaa inaad alla ka cabsiga badiso in markii aad baxaysid hadda mootaa raacaya gaariga hoos laga gali kara ilaahay nooma kaso hooyaa waalidiina ka soo tagin hooyo oo iska ogtahay wiilkeeda wax gaaro ka soo tagin marka way fiican tahay inaad adkaarta afka ku haysanaa haddii aad dhimanayna khayr ku dhimano hadda marka maqribtii aad wax yaraa dhiman soo waxaa rabaa inaad xaafadda ku digto sababtoo ah 12 saac iyo 42 daqiiqo waay hadda maqribkeedna waxaa la galaa 1 saac iyo 5 camal aa la galaa maxaa sugaysin bye bye